habeenkii jimcada soo gelayso iyo maalinta jimcaha waxaa jirto waxyaabo nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam na amray inaan samayno iyo waxyaabo uu nagu booriyey inaan samayno lianna ajir badan ayay leedahay. haddaba waxyaabuhu nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam na amray inaan samayno waa maxay? waxyaaluhu nagu booriyey inaan samaynane waa maxay? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لا يدرس جال من لدنك كجوتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة هبين جمعة برنوا مالين جمعة هبين كي جمعة سو جريسو يمالين تجمعها وحاجرتو أرمو أما أمور لسميو وناكسن قار كوذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نأمري إنا سمينا قار كوذا نقبوري أرمهاس وشن قضب shantaas qodob ayaan sheegaynaa ee sameey oo ku dayo sunnada xabiibkaaga Muhammad sallallahu alayhi wasallam saad u heshid ajirka badan. arrinta koobaad oo caawa ka bilaabanayso caawa habeenkii jimcada soo galayso waxa waaye inaan badino salliga nabiga. waxay soconaysaa ilaa bari maqribka ay soconaysaa. habeenkii jimcada soo galayso ilaa bari maqribka way soconaysaa. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waxaad badisaan salligayga inaa salaan ii soo dirtaan habeenkii jimcada soo gelayso oo caawo kale iyo maalinta jimco. sababta ay tahay waxa way salaantiina waa lii soo gudbina. soo ma jicay salaanta xabiibka in loo gudbiyo. nin saxaabiga weydiiyay yaa rasuulallah markaas waaba dhimatay waa baaba'day see lagu soo gaarsiinaa. xabiibkeena Muhammad wuxuu ku jawaabay wuxuu yiri dhulka ilaahi wuu ka xaaraantimiyey inuu cuno ama uu dhawaado jismiga ambiyada sallallahu alayhi wasallam. badi salliga nabiga caawa iyo biribo khayr allah ku siiyo. arrinta labaadna waxa waaye biri oo salaada subax maalinta jimco hadaa awoodid inaa ku tukatid masaajidka sameey. mar walba way fiican tahay salaada subax in lagu tukado masaajidka. faa'iidooyin badan ay leedahay salaada subax masaajidka lagu tukanayo hadda kor waa ka hadal. laakiin salaada subax maalinta jimco way ka duwan tahay salaadaha kale laana xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaa sheegay oo wuxuu yiri salaad la tukado waxa u fiican salaada subax maalinta jimco oo jamaaca lagu tukado. waa xadiid saxiix ah waaye. idan saad u heshid ajirkaas tuko bari salaada subax masaajidka tago jamaaca ku tuko. ragga waajibay ku tahay dumarkana haday awoodo inay tukato ninkeeda raacdo kale rabta ajirka inay ka qayb gasho iyadana way u banaan tahay laakiin gurigeeda inay ku tukato u roon. arrinta saddexaad waa ina salaada jimco isu diyaarisidoo dhaqso tagtid. salaada jimco ina tukatid waajib waa kama hadlayno laakiin waxaan ka hadlayno waxa waaye ina qabaysatid oo dhaqso tagtid. rasuulka sallallahu alayhi wasallam qofka jimcaha dhaqso tago axaadiis badan ayuu ku sheegay ajir badan oo u sheegay. ajirka koobaad wuxuu u sheegay in la siinayo si dadku u kala hormarayeen in la siinayo geelo ari digaag oo kun saasoo kale la siinayo. fadliga labaad uu sheegay waxa waaye qofkii man ghassala waqtasala qofkii qabaysto si fiican u qabaysto oo kalaho lugeeyo imaamkana u dhawaado aanan ku hadlin tilaabo kasta uu qaado wuxuu helaa ajir hal sano ajir hal sano qiyaamkeeda iyo soonkeeda. idan biri dhaqso qabayso isbarfuumi dharkaaga cad xiro khudbada aad inta khudbada ku jirtidna ha hadlin khayr allah ku siiyo. arrinta afaraadna waxa waa suuratul kahf iloobin. suuratul kahf waxa bilaabi kartaa salaada subax kadib ilaa salaada maqrib inta dhaxayso. salaada subax ka hor lama aqrin kar laana habeen waay. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay maalinta jimco in la aqriyo. culimada waxay dheen marka maalinta waxay bilaabataa waxa way salaada subax kadib ilaa maqrib intaas haysata aad aqrin kartid. waqti muayyan waqti go'an ma lahan waqti yaarta aqrin kartid laakiin ku dadaal jimco walba ina aqrisid suuratul kahf. sababta ay tahay nabigeena wuxuu ku sheegay qofkii aqriyo suuratul kahf inuu ilaahay siinayo nuur jimcahaas ilaa jimcaha kale ku xigabo. hadaa jicishid nuur inuu ilaahay ku siiyo nuur allah ku siiyo suuratul kahf waqti badan ka ma qaadanaysa aqri qasam ma korina ka aqrisid kitaabkaaga soo qaado ka aqriso khayr allah ku siiyo. arrinta shanaadne maalinta jimco waxa ku jirto saaco ducada la aqbalo. saacadaasna waxay u badan tahay inay tahay bacda al-casr.
علماء قاركودا waxay dhaheen waxa way khudbada markuu imaamka meesha saaran yahay waaye laakiin waxay u badan tahay bacda al-casr inay tahay sida darteed jimco walba casrka kadib waxa sameeysa duceyso waqti badan ma ahan 2 saac 3 saac inay ku jirtaa laga yaaba masaajidka ka fadhiiso adkaartaada aqriso nabiga ku sali 6 maalmood kale waxa taqabso laakiin maalinta jimco casrti ku dadaal khayr Allah ku siiyo saacadaas uu ilaahay ku waafajiyo hada saacadaas uu waafajina waalibaat oo ducooyinka badnaa ku duceyso ducooyinkan ka soo sheekeyne ducooyinka ramadaan ka soo sheekeyne ku duceyso khayr Allah ku siiyo ducooyinka gaabano xabiibka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ka sugnaaday oo khayr adduunka ku aakhira ku keenay waxa rabtid waa ku duceysan kartaa xoolo weydiiso caruur weydiiso wax walba weydiiso لكن دعويسو خير الله كسيه مسلمين تنا ودعوه سنتاس أرموت كددال جمع والبخير الله كسيه دنبيجي كيجب الله ضافو جنتنا الله نوض كل مية اللهم آمين إلهي سبحانه وتعالى وحن ويديننا إنه نودن بدافو قف كستو ولا الكيس أسي قد بيكيلب كان إنه إلهي دن بدافو أو حفظية أي إلهي ويدينا ولا ليهنا كلا أسي قد بيه كلبك أكتينو استاجن بخيلها نقونين خير الله ينسي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إلهي درتي سعيدين جعل حي كفى إذيسو ولا لها كلا أسي قد بيه بخيلها نقونين خير الله كسير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.